munaasabad lagu soo bandhigayay cilmi baaris uu sameeyay arday ka qalin jabiyay jaamacadda Indian Ocean ayaa lagu qabtay xarunta jaamacadda Indian Ocean ee magaalada Muqdisho waxaana munaasabadaasi cilmi baarista ka soo qayb galay maamulka jaamacadda Indian Ocean ardayda jaamacaddaas wax ka barata ururada bulshada iyo marti sharaf kale dadkii ka soo qayb galay munaasabadaasi ayaa su'aalo dhowr ah weydiiyay ardaygii soo diyaariyay cilmi baarista uu ku sameeyay arrimaha federaalka iyo faa'iidada uu leeyahay dalka iyo dadka Mahad Maxamed Cabdi oo ardaygii soo diyaariyay cilmi baarista la xiriirta isticmaalka federalismka ayaa ka hadlay munaasabadaasi waxa uu ka warbixiyay cilmi baarista uu ku sameeyay arrimaha federalismka iyo muhiimadda uu leeyahay dalka Soomaaliya cilmi baaris aan ku soo sameeyay buugayga oo ciwaankiisu uu yahay The Impact of Basic Federalism ama qabiilku saameynta uu ku leeyahay federalismka كيستاجي نوعها باي ريجون أما جوبل كباي نظام فدراليزم وأود دولة نمو تاسو قرار دستور قيبين السنة أود دولة نمو مطلوب فيه نظام دولة دحيح مطلوب فيه نظام فدراليزم وحالله أساسي dalka America ama United States of America waxaana aasaasay urur isku tagay oo ka dhisnaa dalkaas taariikhdu markay ahayd 1787 Professor Maxamed Cabdirashiid oo kamid ah dadkii ka hadlay munaasabadaasi ayaa sheegay in loo baahan yahay in bulshada Soomaaliyeed lagu wacyigeliyo faa'iidada uu leeyahay ku dhaqanka federalismka isla mar ahaantaana lagu daydo wadamada caalamka ee horumarka ka gaaray federaalka marka waxay wacyi badan barasho badan معناتي درس بدل وباحثها لكن هدي فهم الصومال فائد هذا فدرال وارد مرة كبحلان على تاس منجرين بابا عن إدباتنا وحاكم جنوا كبحلان لكن إن شاء الله عن رجينا إلى الدكاس أفهمنا إلى أفهمنا المعناتي على تاس أي معناتي فلازم نور سعيد تاليل تلفزيون قرنك الصوماليات مقالة مقدشو